doorashada dib u dhacday weliba horta dib u dhacaysay intaas oo goor bay dib u dhacday oo hore 5 sanadood baa la doortay imika 15 sanadood bay ku dhow yihiin intaaba de sharci darray ku fadhiyeen iyaga iyo golaha guurtuduba wax sharci waa wax sharciga baalmarsan oo aan suurtagal ahayn marka de sharci darrada hawayaan iyaga yiraahdo sharci dejin baan sharcigiina iyaga ku tumanaya bal marka iyagu ha isu fiirsadaan golaha baarlamaanka iyo guurtudu labadaba anigu waa israacinaya ma kala reebayo midna lababa dooro sidii 91 kilo ay u fadhiyaan bay u fadhiyaano kala dhaxlaan kuwan dhowr 10 sanadood bay taageen 5 sanadood waa la doortay sharci dejinna waa isku sheegaa horta sharciga ay dejinayaan waa sharci darre sharci darrada iyagu ha isku xukumaan ha eegaan waxa ay ku fadhiyaan doorashada Soomaaliland baarlamaanka ee markii shanaad dib u dhacday baarlamaanka waxa la doortay 2005 bishii 9aad 29keedii waxayna sharci ahayd inay waqtigooda ku ekaa 2000 maxay ahaydey 10kii bishii 9aad 29keedii marka baarlamaankan sharci ma aha sharciyadii way lumiyeen waxay lumiyeen 2010 marka su'aasha isweydiinta waxa weeye baarlamaanku hadduu sharciyadii uu ku fadhiyay lumiyay waxa uu sharci gareeyaa sidee bay sharci u noqonayaan baarlamaankan waxa weeyaan madaxweynuhu awood wuxuu leeyahay inuu kala diro maadaama uu waqtigoodii dhamaaday guddiga doorashooyinkana waxaan leenahay waxa muuqata inayna wadankan iyo dadkan aydan rajo kala hayn oo marba aad maxay ahaydey mugdi gelinaysaan mustaqbalkooda Soomaaliland doorasho ayay ka iibisay adduunyada hadda waxaad moodaa in lagu fashilmay in laga iibiyo caalamka wax Soomaaliland u cuntama doorashooyinkii way muddo dhaafeen qaarkood waa la isku khilaafay marka commissionku muxuu jiraa commissionku waxa weeye isagoo dalka iyo dadka iyo ummadda iyo aragtida laga qabo intaba isagoo tixgelinaya waa inuu meesha ka kala tagaa iscasilaan isagoo danta iyo dalka u danqanaya cid kasta oo reer Soomaaliland ahina waa in arrinta ka qayb qaadata sidii commissionkan loo kala diri lahaa doorashooyin xor iyo xalaalan loo qaban lahaa oo Soomaaliland sumcadeedii dib u soo celiya waxaan u arkaa doorashada baarlamaanka doorashada inay khalad tahay dib u dhaceeda badan oo Soomaaliland dib u la daadagayo waayo raggan meesha ku sii haysta karna maaha rag dalka dan kale maaha rag dalka iyo dadka iyo shacabka dareynayana maaha waxa weeye ragtooda daraysanaya oo maalinta qabanayaan loo dhiibo mooshin ku ruxdo lacag oo bartayna lacag ku cunaan anigu waxaan leeyahay haddii loo kordhiyayna waxaan oran lahaa baarlamaanku haddii ay daacad Soomaaliland ka ahay way ogyihiin ha iska kala dareeraan iyagu hay iscasilaan waa in la helaa doorasho xaq ah oo xalaal ah oo Soomaaliland ku magac iyo sharaf ku lahayd oo caalamka kaga iibinaynay waa in la helaa oo degdeg ah dib u dhac maalin walba kooto loogu soo xirayo kooto lacagood loogu soo sidii hoobaanta lacag loo ruxayo annagu haddaan shacabka Soomaaliland waan ka soo horjeednaa waxaan ka baryaynaa weydiisanaynaa madaxweynaha Soomaaliland inay si u dhayin iscasilaan waxaan u arkaa labadan doorasho mataane isku lamaane baarlamaanka iyo golaha deegaanka hadda mid walba xilligiisa qadarin bay dhacdaa haddana waxaan anigu arkaa dib u dhaca waxa ku keenay xisbiga wadani oo had iyo jeer caado ka dhistay aan sharafan iyo go'imku wuxuu bilaabay qolihii gobashinkii doorashada komishinka doorashada sharci ku yimaadeen sharci baan laga qaadi karaa isagaan u soo baan anigu oran karaa hadan daraygan soo koobo doorashada dib u dhacday wallahi horta waa mid subxaanallah waa wax waqtigeega dhacay in mar walba la qabto bay hay dadkina maadaama ay wada marneen ya waa wada odayaal wada daawayaan marka waa doorashada waa sharci daro ya sharci daro baan aragnaa doorashada wakiiladii deegaanka dib u dhacday markii shanaad oo wax iska caadi ah oo doorashada Soomaaliland marba dib u dhacdo waxaana wax dib u riixday inta badan dawladda oo sababo aan jirin ama waxaan dhulka oo iska sheegto inta soo ururto tira waxaas jira waxaasna waxay doorashada dib ugu dhacayso macquulada ma dhowr jeer waxna laga hadlayna commission keenana qaban karin isbad mucaarad ku sheegay wixii baana rumoobay